annagoo ah wafdi ballaadhan oo isugu jira maamulkii dawladda hoose maamulkii waxbarashada ee gobolka guddidii waxbarashada ee degmada iyo guddidii waalidiintaba inaannu wacyigelin idinkala qayb gallo daabuurka dugsigan oo dugsi aad u ballaadhana hadalkii waa la dhammeeyey laba kelmadood oo kooban ayuumaan ku darayaa waana badan baa la soo jeediyey wacdi badan baa laydii soo jeediyey wax sheeg fara badan baa laydii soo jeediyey waana mudan tihiin qofku da'daa marka uu joogo ama da'daa aad maraysaan marka uu qofku joogo waxa uu ugu baahan yahay waxa weeye ama ugu baahi badan yahay in lala taliyo in la toosiyo in wax loo sheego aad baa u nasiib badan tihiin aad iyo aad baa u nasiib badan tihiin subax walba waxa idinku soo kallahaya macallin wax idiin sheegaya waxa idiin diyaara waalidkii oo idin soo diyaariyey waxa iyaguna idiin diyaara guddidii waxbarashada waxaase ardayow adiga kula gudboon inaad weelayso oo maanta waxaa lagugula hadlayo aad dhaga u yeelato oo aad weelayso ood ku dhaqanto haddii aad taa yeeli weydo ama maanta uu ku dhaafo hadalkaa lagugula talinaya lagugu toosinayo laguu sheegaya hadduu ku dhaafo waxa dhici doonta maalin aanad waxba kuu taraynin inaad xasuusato oo aad ogaato qiimaha uu hadalkaasu lahaa maanta waxa ugu muhiimsan ee aan kuu sheegayaa waxa weeye inaad dhagaha furto in talo wixii lagu siinayo wixii tusaale lagu siinayo wixii waana lagu siinayo inaad weelayso ayaan kugu adkaynayaa haddii ay taasu ku dhaafto maalin aanay waxba tarayn taladu maalin aan hadalku waxba kuu taraynin inaad xasuusato marka maanta wakhti qiimo badan baad ku jirtaa wakhti baad haysataa fursaddan iyo jaaniskan iyo nasiibkan aad haysatana in badan oo khayrkaaya baan helin marka inaad ilaahayna ugu shukri noqdo taladaa iyo waanadaa iyo waxla sheegaana aad weelayso sababtoy tahay mustaqbalkaagii aayahaagii iyo inaad noqoto qof qiimo leh oo bulshada qiimo ku leh oo inan iyo inanba waxtara ayaa lagugula talinayaa laguu tilmaamayaa si wax walba lagula garab taagan yahay waxaan markaa anugu adkaynayaa waanadii iyo waxsheegii waxa dhammeeyey qoladii iga horraysay ardayow ardayaday inaad weelayso talada iyo waanada lagu siinayo talada iyo waanada lagu siinaya waxay ku qotantaa inay noloshaadu qurux badnaato waxay ku qotantaa in caqligaagu koro waxay ku qotantaa inaad noqoto shakhsi nolosha ku guulaysta inaad noqoto waana inta aad doonaysa ee lagugu tabcayo weeyaan marka waxaa lagaaga baahan yahay si aad u gaadho si aad waxaa laguu sheegayo quruxda badan la aad u hesho inaad dhagahaaga furto caqligaaga soo jeediso weelayso waxa laguu sheegayo waxaa kaloon doonayaa inaan iyadana halkan idinkaga baraarujiyo oo wacyigelinta aannu saaka u soo baxnay buddhig u ahayd hadafka guudna uu ahaa in laga fogaado waxyaabaha waxyeellada ku ah waxbarashadaada waxyeellada ku ah oo ay kow ka tahay waxyaabaha ee wakhtiga kaa luminaya ay kow ka tahay ardayow moobilkaa maanta adiga dani kuuguma jirto wakhtiguu kaa qaadayaa maanta adiga waxay dantaadu ku jirtaa inaad wakhtiga aad haysato wax dhigato waxay dantaadu ku jirtaa inaad wakhtiga aad haysato wax akhrisato isaguna wuxuu cadow ku yahay inuu wakhtigii kaa lumiyo waxaan aad idinkagala dardaarmaynaa sidii madaxdii iga horraysayba ay sheegeen inaanad moobilka ku kadsoomin inaanad moobilka ku kadsoomin inaanu wakhtiga kaa luminin inaanu waxbarashada kaa luminin inaanu moobilku saaqidin baan kaala dardaarmaynaa haddii aan la yidhaahdo waxaana loo baahan yahay inaad iska xakamayso waa ka mamnuucnay iskuulka waa ka mamnuucnay lalama iman karo lalama soo gelayo laguma isticmaalayo laakiin inta aad dabadda joogtana waa inaad iska xakamaysaa haddii aad wakhtigaaga moobil geliso haddii aad wakhtigaaga waxa ku dhex jira aad geliso ogow wuxuunbaad u aayaysaa waxa halkaa ku jira aad wakhtigaaga gelisay haddaad wakhtigaaga waxbarasho iyo wax akhris gelisana waxaad noqonaysaa qof dhisan oo aqoon khayrkii ku dhaafay baad noqonaysaa waxyaabaha uu dhibaatooyinka uu keenay waxaa ka mid ah ardaygii inaanu imtixaanba geli karayn ardaygii markuu imtixaan galo inaan moobil looga taag helayn ardaygii markuu imtixaan galo inaanu isku kalsoonaanayn wuxuu lumiyey kalsoonidii ardayga wuxuu lumiyey dadaalkii ardayga wuxuu ka qaaday wakhtigii oo dhan waa la dagaalamaynaa idinkana waxaan idinkula dardaarmaynaa
inta aa wax baranaysaan inaan moobilkaa idinaanu dhowaanin waxaa kaloo aan halkan runtii jecelahay inaan iyadana maadaama sanad dugsiyada cusub la gelayo weliba innagu aynu berbera haddaynu nahay xilligii qaboobaha aynu iminka gallay in shaqo badan inoo bilaabmi doonto in dadaalka la labanlaabo annagu waa labanlaabaynaa waa idinla xisaabtamaynaa waa idinku badinaynaa cagta iyo xisaabtankaba idinkana waxaa la idinka baahan yahay inaad ka diyaargarowdaan sidaa hore loo sheegay dugsigan wuxuu ahaa dugsi taariikhi ah gobolka oo dhan dalka oo dhan taariikh kule ayuu ahaa taariikhdaana waxa u sameeyey marba inta ku jirta ayaa u samaysay maanta idinkaa la idinka doonayaa taariikhdii dugsigan uu lahaa waxaan si gaara ula hadlayaa ardayda fasallada 8aad iyo fasallada 7aad waxaad tihiin hormuudkii dugsigaa tihiin taa horta waa inaa aqoonsanaataan sanadba hormuudka waxa ka ah dugsiga ardayda ugu sarraysa ayaa ah waxaa la doonayaa markaa inaad waddo wanaagsan u jeexdaan waxaa la doonayaa inaad isu dhigtaan oo aa u muuqataan hormuudkii dugsigan inaad noqotaan baa la doonayaa dugsigan wuxuu noqday dugsi ay isugu yimaadaan arday dugsiyo kale ka imanaysa waxaa lagu soo koobay dugsi dhexe waxaa la doonayaa markaa inuu ka muuqdo gobolka aqoon kaga muuqdo qurux kaga muuqdo bilic kaga muuqdo sidaa Shabcaan sheegay waxaynu isugu tagaynaa inaynu dugsiga bilicdiisa kor u qaadno soo diyaar uma tiidin inaynu dugsiga bilicdiisa kor u qaadno waxay idinku soo hagaagaysaa nadaafadiisa inaad ka shaqaysaan idinkaa wax ku dhiganaya idinkaa subax walba ku soo kalahaya waa inaad maamulka kala shaqaysaan nadaafadda dugsiga galaasyada iyo nadaafadda guudba waa inaad ka shaqaysaan waxa inoo ballana oo aynu sanadkan ku ballamaynaa inaynu kor u qaadno kow akhlaaqda ardayda inaa kor loo qaado laba aqoonta oo dadaal kor loogu qaado bilicda iyo nadaafadda iyo quruxda in kor loo qaado ugu dambayn waqti badan baa la taagnaa waxaan idinku soo ururinayaa laba qodob baan idinkula soo ururinayaa qodobka koowaad waa idin ducaynaynaa waalid baanu idin nahay mas'uuliyiin baanu idin nahay waa idin ducaynaynaa waxaan idinku ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku guuleeyo nolosha adduunyada iyo ta aakhiraba in alla idinku guuleeyo mar labaadka waa idinla dardaarmaynaa duco keliya idinkuma filla haddaana dadaalin ducaduna waxba kuu tari mayso haddaad tidhaahdo waxaa noo duceeyey waalidka oo waxaa noo duceeyey madaxdii oo aad waxba baran weydo maxaad noqonaysaa waad saaqidaysaa ducadu waxay wax u tartaa qofka dadaala ee wax barta ee karti la yimaaday u tartaa waxaan idinkula dardaarmaynaa inaydinaan khasaaraynin dadaalka waalidka inaydinaan khasaarayn dadaalka macallinka inaydinaan khasaarayn dadaalka dawladda ee aad dadaashaan oo aad aqoon ku dadaashaan oo aad wakhtiga ilaalisaan waxa haysataan waa wakhtigana ilaaliya aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baa idin salaamaya waxaan u mahad celinayaa maamulka dugsiga oo runtii isaguna aad iyo aad ugu dadaalay inuu aqoontiina si wax walba idiin soo kalaho inuu idin diyaariyo iskuulka inuu idin diyaariyo galaaska inuu idin diyaariyo macallinka waxaan kaloo u mahad celinayaa macallimiinta dugsigan oo runtii iyaguna aad iyo aad u dadaala waxaan la ilaawi karin waalidka subax walba soo kalaha runtii aad iyo aad ayuu waxbarashada ugu sawiran yahay taariikhda waxbarashada ee gobolka aad buu ugu sawiran yahay qiimuhu annaga leeyahay xagga iyaga qiimuhu ka leeyahay idinkana waxaa la doonaya ixtiraam akhlaaq iyo waalidnimo ula dhaqataan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu